madaxweyne waad mahadsan tahay magacaygu waa Cabdi Ismaaciil Mursal waxaan ka socdaa badda cas 24 TV waad sheegtay in xad dheer aynu la leenahay Ethiopia oo kamid ah dalalka lagu arkay kiisaska coronavirus-ka habeenii maalinba waa laga soo galaa qaadka iyo qudaartuna iyadii ka yimaadaan maxaa talaabo ah lagu xalinaya arintaas ama qaad joojin ha noqoto ama qudaarta ha noqoto u qorshaysan dawladda iyo guddidan garbahaaga taagan talabaad waxa weeye wax kasta way qaliyoobeen iminka magaalada Hargeysa maanta hadaad gasho saabuntii lagu faraxlanayay waxyaabihii faraa lagu nadiifinayay sooftiyadii wax kasta kor bay u kaceen arintaasna maxaa dawladda uga meeliyay ilaa maciishadiya ta hore waxay nooga meelayaa meelaha ay ka soo galaan baacbishirku Ethiopia ay wajaale ugu xoog weyn tahay iyo magaalooyin kaleba oo wada intaasoo wadada ka soo galaan ilaa iyo halkan ku xirno Soomaaliya xadka uu ka galayo magaalo ku beeganay wadooyin waa la soo wada galaa kuwa ugu saxmadda badan waxaan dhagnay qolo caafimaadka oo kantaroosha kuwa gobolada kalena gobol walba meelaha ugu saxmad badan ee dhaqaale ahaan furin karo waanu dhageynaa haddii la guddiga qorsheynayso waa la dhigaya labadaas ay kala sameynaya waxa kale oo ka xoog weyn oo sameynaa inaynu dawladaha jaarka inuu xadka wada dhan ka midowno wasaaradda caafimaadku inay arrinta meel ka wada qabtaan xadka talaabadiis halka waa la dhaafin lahay waayo xadkeena balaaran xad la oray waa la xiri karayaa maaha waa dad isu furan isku mid ah isku xiran wadooyin bad male buura male gidaarino ma kala xidhna waa dhulka ilaahay furan oo waana iyo saynu isu dhowr raawun baan ku deenaynaa iyo meelaha ugu badan inaynu geynaa caafimaadka ta kale waxa waliba way qaaliyoobeen waa run waa waxyaalaha inaan ku talagelin dee inuu soo baxsaday waxaan ummadda waxa le waxay cuntay iyo waxay watay iyo waxay isticmaashay dhan dibadda ka keenta adduunku wuu kala xidhbayaa adduunka oo dhan baa sii kala yareeray hadduu cudurkan sii socdaa marka waa dhibaato caalam oo dhan ka qabta waxaynu u baahannahay hadday wixii dibadda keena yaraanayaan waxaynu gudaha kaga maarmayno sidaynu u abuuri lahayn oo dib isku noqonaa aqoonteennii hore inuu jiray cudurro ma jiray waxyaala laga baarwa jiray waxbaynu haysanaa waxa weeye waxa qaaliyoobaya kamaarankeedii sidaynu u yaraan lahayn tani ma aha wax laga aloonaya hebel talaba ka qaado waa reality hor timid oo caalamka hor timid run baa hor timid adduunka kala xirmaya nin waliba wuxuu haystay iyo wuxuu tabcaday iyo wuxuu maskaxda hayso dhaqmayay intaas la tusay tusaale tusay imika labada dal adduunka ugu xoog weyn Mareykanka iyo China ku soo reeyay China si qayl la'aan oo dib yarba u maamushay sidii qof qore wax maamulay waa dictator waa meel la isma qalbaa leeyay dadka waa qof talaabadoodu wax noqotay mid noloshooda ku badbaadiyay Yurub iyo Mareykan oo ugu lacag iyo aqoon iyo saadar jecel ahaa dhibaato haysata waxay ku xiran tahay culture-ka si dadku isu maqlaan dhaqanka imika dadka qaarkii Ethiopia naga jaarka haddii dawladda maanta saah la yeero 190 istaageero fuliya waa say dadku u kala dhaqanayeen laakiin dadka egalitarianka dadka iska furfuran siman ee ku adagtay xagga u baydo aynu ka mid nahay waxa loo baahay maanta inay wax iska bedelaan waa tii aan kula waxaanu baahanahay faqiirkii iyo qanigii yaani kala go'ino hal iscaawiyo waxaanu haysano tashiiran amarka yaala inagu qasbana aan waa caafimaadkeena wasaaradda caafimaad ka qaadan say u eeyay kulba halkan hayaan waxay la tahay taas waa maanta waxaan tahay in laga bixi karayo la soo maxaa la qaban karaa ma waxaan wada ka xog weynaad marka runtii way hor timid sidaynu inagu isu badbaadinaa waa taala waxaanu tashiilanaa wixii aynu weynana wax laga maarmo sameysana aqalka raga laga doonin baad ka mid tahay ugu jooga inantaan siinay magacaygu waa Naciima Cabdi Axmed waxaan ka socdaa Horyal TV madaxweyne waxaan ku weydiinay su'aal waxa la sheegay maadaama uu soo socdo xanuunka laga sii feejigan yahay ay nagu soo fool leedahay kala xidhan ganacsatada Soomaaliland ay tahay kuwa ugu daran maanta ka faa'iideeyay Chinese-kaas hadduu dhaco maxay idinka meel yaala sidoo kale guddida aad magacawdayna ma ku jiraan ganacsatada ama ma la shirteen waxay la tahay waxa la yiraahdaa ninka dheer wax looga tilmaamo ninka weyn ama ka aqoon badan wax looga sheego ganacsatada odayaasha dalka hantidina iyaga haya dadkana iyaga u jecel badan maadaama Ilaahay wax ka siiyay dadka madaxda dhaqaale u yihiin waxay la tahay maanta inay nagu jecel badan inaga wada hadlayna anigaba si ay dalka waxaan ugu kaydin lahayn wax hayana dadka wax ka siin lahayn marka niman wax fari karayo uma filayo ganacsatada maanta waa ragwaayaraga waa wadada waan wada aqaanaa hatta mid weyn kalsooni baan ku qabaa inaan fariir u baahnayn ay dalkooda maanta u gurmanayaan
magacaygu waa maxamed faarax coomaade waxaan ka socdaa SBC TV kolaaba arrinka ugu muhiimsan waxa weeye waa noloshiyo maadaama aynu nahay dad inta badan noloshooda ay ku xiran tahay inay wax la soo degaan oo waxa ay dhoofiyaan ay tahay waxa ugu muhiimsan waxa weeye su'aashaas way soo noqnoqotay waa daruuriyaadkii iyo noloshii gaar ahaan wixii qowtal daruuriga ah ee dadku ay cunayeen haddii ay noqoto raashinkii iyo wixii la halmaala waxyaabaha kale waa laga tegi karaa laakiin noloshu de waa daruuriyaadkii waa raashinkii xukuumad ahaan wasaaradii beeraha iyo hay'adii kaydka raashinka qaranka iyo waxyaabahaas hay'adahaas oo kale marka dib loogu noqdo haddii ilaahay naguma keeno xaaladdu ay ka sii yar darto oo badxirankan iyo waxaan adduunka day socodku sii xadidmo maxaa idinka meel yaalla daruuriyaadkii ay dadku cuni lahaayeen horta midaan ku saxo coomaado maxaa idinka meel yaalla maanta maxaa inooga meel yaalla wey maanta nin wax loo wadayo jirto horta maanta waxaan taaganahay maxaanu sameynaa maxaanu qabanaa taladana dee intii halka fadhida iyo waxaa la yaabaa in qaarkii ka soo baxdo tan ku nabadgeli lahay ilaahay mahadi waxaan marayaa muddo dheer kayd raashin oo dharkeena ka soo gaa maanta inoogu badana oo la haya wasaaradda hay-addan kaydkuna maanta intii la dhisay 2 sano ahayd waxay haysaa kayd aanay weligeed qabanin oo in kayd xoog amaanta laakiin marka qarar ahaan la yidhaahdo la soo taago waxaas dee mudeer bay ku dhammaanayaan kaydka aynu haynaa marka loo eego saynu kaydka u han jiray hay-adaheennu labada hay-adu maanta kayd badan bay hayaan laakiin waxay ku badan tahay markaynu nabad qabnay ee aan iyaga cid ku soo jeedin ayuu wax badan noqonayay dee oo waanu ismahadinayna idaacaddan ku siidina intaasoo tan baa goday intaasoo hektar baa soo go-ay qoladan maxaa yeelaa kaydintu intaasoo tan baanu haynaa haddaad imika tagtaan 4 meelood haystaan way buuxaan 4 abahalay dhistaan hangarbaa cirkay maraya mid wala wuxuu ku xidhan yahay saqafka waxna wuu soo socdaa laakiin waxaas marka loo eego dee waxaan imika inagu soo baxay dee waxay noqonayaan wax laakiin waxaan kuu sheegayaa adduunka hore talo kale u soo martay dagaaladii labaad adduunkaa dhacay bad xidhan baa dhacday waad ogaansiyaad barre dowladdiisa diyaaradii halkan la dhacday dhammaan waa la qaxay xitaa guri lama joogin bannaanka la fadhiistay weli lama maqal wax rees waa loo gaajay macluul dhintay waay waa la gaajooday waa run laba la qaday caruur laga yaaba qof lagu dhintay inagu hantideenu haysanay iyo tiradeena hantideena badan waxaanu haysanaa xoolo nool dadkuna borotiin baa ugu weyn wax u baxsada meel buu ka helayaa maanta si kastoo baad u xirantay qofna hilbi waay maayo lacagaynu dadkeenu faqariinta ku gaarsiino waxaan isku siilsano waa waxaan hadii tala keeno kalluunkuna waa naga badan yahay biyo iyo dhul kala digna waan haysanaa waanu waayanaa raaxadii iyo hudheerkii la galaya laga yaabo haddii ay adkaato ilaahay ma keene orkaa iyo kaay dalabtay waa laga yaabo wixii dibada la keenay laakiin haddaynu istashilo anu cabsaa ma qabo badxidhan horaa dhacay dagaala horaa dhacay masiibo horaa laga soo gudbay haddii baad u xidhmaan warwar ma qabo raaxa la waayo in waayn waxaan ku noolaano horena waa inu jaabin laakiin waxay ku xidhan tahay fikraddeena seen isu maqlo dadku markay tashadaan midaysay wax walba qaban karaa markaa maanta ma garan maxaa dowladda uga meel yaalla waxa dowladda waxa ku meel yaalla warseenu badbaad dabaan meel taalade magacaygu waa Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen waxaan ka socdaa Universal TV su'aashan ku weydiinay madaxweyne waxay tahay haddii xanuunkaasi maado ilaahay bay nooma keenay waxa ugu horeeya ee ugu yar ee dadku u baahan yihiin waa safe mask amaba afka dahaarka markii xanuunkaasi soo baxay si weyn baa looga daadgureeyay deegaanada Soomaalida gaar ahaan Somaliland inta ogaalkaygaana magaalada Hargeysa aad buu ugu yiri dhinacii qiimaha 5 jeer ayuu libilaam maalkaas safe maskaasi wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda arintaasi maxaa uga qorsheysan oo ah arinta ugu horeyso hadduu yimaado alla ma keenay dhibaatada ugu horeysa ay timaado ay waxa ama ugu horeysa talaabada la qaadi ay tahay waxa ka meel yaalla su'aasha hor uu ninka hore ma weydiista war maxaa meel ganay noo yaalla taala mugti wax rag la gacan ku jira maxaa ka meel yaalla markii u horeysay ee waxaan dhacay wasiirka caafimaadku waa kan maalintii aan reer ka furaayay ayaan isu diin maxaanu haynaa wax yar bay noqotay haddii baa wax nagu yimaada maalintaasaan nidhi war maxaan iibsan karaa bal maaskii hala doon in baarkii marketka laga laayay moogta isagoo 5 jeer qiimo laabmay
qiimihiisa ilaa maantada dalkii u dambeeyey ayay wasaaradda caafimaadku maqantay waayo waxaan u taray lacag kasta dalku heli karaa lacag lagu badbaado lacag madaxda waxaynu haysaa ganacsada innaga waxayna waxa loo karaa qofka oo iibso bal horta in la helo mid iiba dalalkii ugu waaweynaa uu ka go'ay laakiin waanu ku maqannahay maaha imika dowladda caalamka waxna siiya maaha nin walba iska isbadbaday muxuu ku siinba kuwii loo qeyshanayay ayaana wala isaga yaa allah taagay marka haddii aynu ayib iyo caaqibo ku helaan labadaba ku maqannahay ilaa maalinta wax yar waa la keenay oo public ku filayn laakiin imika waxaanu haynaa waxay dhakhaatiirta iyo dadka caafimaad ka shaqeeya waa la hayaa in ku filan iyo ku hawlgeli karaan laakiin publicly hadda haddii soo heblaan ku siibsan lacagta weli keeni qof walba soo إن أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أيان وجهرين دي كم هاد نقينا هنا فرصة عين كانت طبعا نصيصان مجا عيجو وبتري كوسار محمود تلفيشة كالسهن أيان كالسعودة سؤال شيء دمضنا واحد هاي إن واحد يسوين ولا وضع صعنا إن دوان إسبيتال كوين هرجيسة أي ضدي وجود إنتين أكسيتشيلان تبى سؤال شمش طلع واحد تمادامو إسبيتال كي سدايه sidee baynu ugu hortagi karnaa xanuun duni idinka imkaaniyaad badan aad uga qaydisay waa jirtaa inay marka xumaatay cusbitaalka oxygentii oo dad ku dhintay inaan ku dhintay maalintaas la diray mashiinkii kan jooga lagu xoojin lahaa waa laba bilood imika labada bilood processkii mashiinkii lagu soo iibin lahaa buu ku jiraa waayo waxba lay nooca ay qoladan hore soo haysay aanu dalbanay China lagu soo ayaa marka hore deetana waxa la amar uma lagu sameeyaa inaan umma kadin bilowna assemblygiisa ayaa lagu jira ma markii ugu dambeysay way ka hore waxaan idin keen karaa 15 cisho ka bacdi meel ka dhow waanu diidnay waayo mishiimaan doonina weyn oo dhaliyo oo ku filaada dadka inta leeg mishiin yar oo kala baahan laga buuxiyo maana doonay oo joogto socota waanu ka hawlgaleynaa maantana maxay nooga meeyaa dhakhtarkeena aba oxygen ku yartahay iyo saataay taray noqontii baalkana hal dawada waa lagu caawiyaa oxygen qofka la gelinayo marka sabadu istaagaane dawo lagu bogsiya ma laha horta badaro ka horta baynu baahnay ka horta gana cid qura dhagaha dadka haysata ee iyo jeer hadlaysa adaa kowka dadka waxaad aad uga waanaysaa waxyaalo baalka keena ilaa hadduu soo fakado dawo ma lahe xitaa baro dawladdu maxay ninka u dawo weyd qofku maxaa la qabtaa imika qofka marka lagu qabto isolate garee gooni u xid cid kale uu gaari hadduu xaal ku cuslaadana si ku rid oxygen taas loo soo iibiyo awlaa step kii eeriska lagu deeyay uu ku bogsan waay tii karaacada lagu deeyay uu ku bogsan lahay markaas sidayna inaanu taag darro wari sogna soo ma oga sanadkii intaan u diro India iyo Turkiga iyo dhakhaatiir lacag naga baxda in cusbaalka adduunka u wanaagsan noo dhis lahayd ee dadku gaar u bixiya laakiin alwaana aqliga war lacagta naga baxaysa isugu inuu cusbaalku dhisan dawladdu maxay qabataa dawladda lacag cusbaal lagu dhisan ma siisaa baa ka horeysa xisaabi waxa dawladdu ay dawladdu dhibto shacabka u dhibanay cashuura aroor baa waxaan sanad walba baashka miisaaniyada aanu keenna waliba iyadoo transparent imkana waa la xisaabin karaa war waxaanu dhibnaa horta waa maxay dawladda loo dhiibaa war maxay dawladda inuu bixisaa inta qoladina jiraadka adigu bari yar ku jira hadal aad tuurteen fadban aliyar heer isku direen inuu ciidan iyo nabadgelyo u daraa ku baxda cusbal bay dhis lahayd maanta maalad waxa ku daray adigu caafimaadka waa ma santiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh